وإذن سلام صاحبي يلا halkan kasii wada doonaa taxaniin oo socdo magaciisa The Art of Sarah taxanaa waxa ka sameeyay qayb hore fadlan hadii aad soo daawan channel dib ugu laabi soo daabo inta muuqaal guud galin waxa xusuusinaya inaa muuqaalka like saartid saaxiibana ugu cusub hadii aad tahay subscribe soo channelka gambalaalkana furo qaybtan waa qaybtiisii labaad kadib meesha waxa imaanay dambaar baar jayna wuxuu ku dhahayaa qoftan ayaa hees cadeyn fara badan kadib waxay wada tagayaan meel maqaayad ah hayuuna wax ku dhahaysaa hadda qoftii Sarah ee saasmi ku hadaaftay baar wuxuu ku dhahayaa adinkale ama qoftaas nafturqsiiseen waa niig shikiyay saaxiibteed waxa ku dhahaysaa taliyaha hadda labadeen ma noog shiksintiin inaa qoftaas aan nafturqsiin baar wuxuu ku dhahayaa maadaama si dulmi kaaga soo shaqadaada sidaas darteeda ama cadaawad ugu qaaday maalintii dilka dhacay adinka meesha joogteen oo xafladda ka dhaceysay foodan waa ka ciseen meeshaas hayina ku dhaysa taas waa ku yareen waxaas laakiin cadeynaan yahay oo fara badan waan qoftan ag fadhiso saaxiibteeda ku dhaysa bil kor ayaan saaxiibteeda shaqada ku booqday ayagoo meesha boorsooyinka sawirka ka qaadayo kadib waxa uu kor imaanay Sarah ayagoo sawirka ka qaadayo meesha hayina ku dhaysa Sarah qoftan macaamiil cusub waay si qaasan uu shaqeynooya Sarah ku dhaysa mar shaqada hore iskaga sii wado wayna iska baxaysaa kadib saaxiibteeda nafta ku soo laabanaysa kursi meesha ay iskaga fadhiisanaysa ayadoo naxsan kadib saaxiibteeda iska soo jaraysa ani waashkii boorsooyinka feegla ameeyeen hayina ku dhaysa adiga feeg ee mujeed miya katinada wadatid adaa feeg socda ah saaxiibteeda ku dhaysa tama feeg ah waa mid asli ah ani kaliya magaaladan ka bato ayadoo warkood hal mar ay qaylinaysa waxayna arkaysaa Sarah oo meesha taagneed oo warkood in dhuuqaysay hayina kadib saaxiibteeda ay jiidaysa waxayna ku dhaysa walaalay ka tawad xanuuna maanta igu riday inta saaxiibteeda bixin waxay ku dhaysa qofta ma Sarah ah qofta hadda kor meel ku arkaa oo malayna Sarah ayada warkood dhan kor ay kala socotay kadib markay Sarah xafiis ugu tagtay hayooyin Sarah waxay ku dhaysa hadda kadib shaqada ka buriyay waxa ka filaama in waji kala soo baxday marka fasaxa tahay maalmo kadib saaxiibteeda guriga u tim ayadoo xanaaqsan waxayna ku dhaysa ayadoo ooyinayso walaal soo buriyay shaqada anigana kadib dhulka fadhiisanaysa qayli ooyina isku darsanay hal mar hayin waxay dhee markaas waxaan dareemay inay meesha wax qaldan yihiin aysan shaqada saaxiibteeda sikidisa aan looga soo burinin kadib waxay weydiinaysaa ma xasuustaa meesha ku aragtay Sarah saaxiibteeda waxay ku dhahaysaa meel ku arkay laakiin meesha tahay wali ma xasuusti kadib baar wax ku dhahayaa hayin adiga ma ogeed in Sarah ay isticmaashay aqoonsigaada hayin yaab ay soo haray aqoonsigayga kadib ayada saaxiibteeda qosol ay jabsanayaan kadib waxay ku dhahaysaa waxay ila tahay marka warqada heshiiska shaqada saxiixay markaas ay koob ka qaadatay aqoonsigayga sidaas ayay ku heshaan u malaynayaan ayna ku isticmaashay aqoonsigayga kadib warqada ay u dhiibaysaa waxay u sheegaysaa inay halaas cadeema ay ka haayaan kadib waxay ku dhahaysaa qoftaas markuu sanadka dhamaado waxay gubi jirtay wixii boorso soo haray sanadkaasi oo dhan qoftaas shirkadeeda buudiyoor magaceeda way jecleed waxay gadaha iska aadaanay wax feeg laakiin shirkadeeda jecelka u qabrun ayuu ahaa kadib dambaar baar wuxuu weerar ku qaadaya dukaanka Sarah Kim soo baartaan ugu sameeya asagoo ciidan badan wato qofta meesha maamulakeeda waxay tusayaan warqada maxkamadda in meeshan la baaro intaysan baaritaanka bilaan qofta meesha maamulaha ahayd waxay ku dhahaysaa askarta in halkii xab boorso inta taalo inuu qiimeedu u yahay 100 milyan oo won marka hal firtad ay soo gaarto idinka la idin karaba waadan dhelaysiin lacagteeda baarka asna wuxuu tagay xafiiska Sarah wuxuu qaanad ku arkaya hadda ka hor tayga uu siinay Sarah markay ooyinaysay kadib maalintii xigtay baarkay jeeb waxay tagayaan meeshii biimareenka ahayd oo meedka laga helayay jayna wuxuu siinaya baash wijiil kashto kadib baarku wuxuu galayaa meeshii godka ahayd oo biyaha maraayeen jayna kor ayuu kala socdaa asaga dhinaca kale hayeen saaxiibteeda waxay soo xasuusanaysaa waxayna sheegaysaa qofta Sarah lahaay inay hadda kor ku aragtay meel boorsooyinka celiska lagu gado jayna wuxuu ku dhahayaa laakiin markaas waxay ahayd 5 sano ka hor kadib hayeen saaxiibteeda waxay raadinaysaa taleefankeeda hore markay hesho si fiican ay u soo xasuusanaysaa Sarah maalintaas waxay imaanaysaa dukaanka boorsooyinka celiska lagu gado kadib dukaanka albaabkiisa ay fadhiisanaysaa hayeen saaxiibteeda iyo kuwa kale la socday meesha sawirka ay qaadayaan ayagoo sawirka qaadayaan meesha Sarah sawir soo dhaxgalayso Sarah markay aragnay sawireen ayadoo fadhiso kadib Sarah soo kacaysa waxayna ka dafaysaa taleefanka waxayna iska tuuraysaa sawiradeeda qoftaas magaceeda wuxuu ahaa Moka kadib wuxuu soo diraysaa jay sawiradaas ay maalintaas ay qaaday baarka markuu hore u sii socdo godka waxa ku halaaban dhiiqo aad u fara badan kadib sida uu sii socday waxa ku soo dhaxbaxaya meel qashin lagu tuuro kadib sida uu soo wuxuu fuulaya wiishka asagoo dhusuq badan markuu gudaha soo galo moolka dadka dhan way ka naxayaan kuligood sanka ay qabsanayaan wuxuu tagay duqdii jooy ahayd markay aragto ayadan sanka ay qabsanaysaa kadib saaxiibkiis jay wuxuu keenaya dhar nadiif ah markuu dharkiisa soo bedelo wuxuu imaanaya jooy ayadan abuukaateeda ay sii diyaarsatay abuukaata wuxuu ku dhahayaa muhiim ma ahan inaan bixino dukumeenti kasta oo qusay shirkadeena Samuel waxaan haysanaa doorashaan ku dooran karno waxaan dhiibayn anaga baarkan wuxuu ku dhahayaa hadaan caabin waa ogtahay inaa wax badan qasaari doontid adigana waxaa haystaa lacag aad u fara badan waxaadna qofku u taajisan South Korea waadna ogeed Sarah inay tahay qof khiyaanooley ah kadib markuu xafiis ku soo laabto tiimka wuxuu sheegaya qofta mukaal lagu magacaabo ayaa baaritaan ku bilaabayna waxayna ka shaqayn jirtay shirkadda Samuel 5 sano ka hor mid tiimkiisa kamid ah ayaa soo ordaya wuxuuna ku dhahayaa markaan qayb dabagalka shaqayn jiray ayaa maqlay magacaas kadib warqadaha darbiga ku dhagan ayuu ka raadinaya wuxuuna soo bixinaya sabirkeeda kadib waxay tagayaan qaybta warqadaha dambiyada lagu keediyo mid meesha jooga wuxuu ku dhahayaa qofta ma raadinaysiin qofta internet dadkina waxban ugu gaday markay lacag ka heshay way dhuumatay lacagtiina way la goysay lacagtaasna ma yareen waxay ahayd 500 milyan oo won baarka wuxuu ku dhahayaa cadeemo kalimihiisa miya qoftan qof hadda dhow dhintay ayaan ugu shakisanahay inay tahay asagana wuxuu ku dhahayaa waxa malaynayaa inay adig khaldan tihiin qoftaas mukaal lahaay 5 sano ka hor ayay dhimatay anaa 5 sano ka hor baaritaan ku soo sameeyay gurigeeda waxayna meesha ugu tagtay intaysan isdilin warqad kadib kaamira waxa ku tusay ayadoo iska tuurayso boondada webiga baarka wuxuu weydiinayaa ma heshin meedkeeda asagana wuxuu ku dhahayaa waa la waayay meedkeeda sidaas ayuu kiis ku xirmay kadib markay xafiis ku soo laabteen baarka wuxuu soo bixinayaa warqadii markay isdilaysa ay qortay muka jaayo wuxuu ku dhahayaa hadda warqadaam soo xaday baarka wuxuu ku dhahayaa waana u shaqeynaa si ka duwan sida hadda u shaqeyno si aan qaladka uga hortagno marka daarabin albaabku waa kan waa iska bixi kartaa waana fursadii kuugu dambeysay jaayo asna baxaya albaabkii dirishada ayuu soo xirayaa wuxuu ku dhahayaa diyaarayaan oo inaan wada shaqeyno kadib waxay bilaabayaan inay warqada akhriyaan Sarah shaqadeeda ugu horeysa waxay ka bilaabay shirkadda Samuel ayagoo wiishka Sarah saaxiibteeda u sheegaysa sharciyada shirkaddan u yaalo midda koowaad isku isticmaalin suuliga macaamiisha
macaamiisha. Midda labaad wiishi khaaska VIP-da ee loogu talagalay macaamiisha isku fuulin. Waxaa laga yaabaa haddii lagu arko in lagu dacweeyo oo shaqada sidaas ku weyso kadib ayadoo shaqadeeda ku jirto waxay arkaysaa boorso aad u qurux badan ayadoo fiirinaysa waxa u imaanayso midoo isla shaqeeyaan waxayna ku dhahaysaa aniga waxaan rabaa boorso noocan inaad gato. shaqaalana waxay ku dhahaysaa haddii aad maalintii aad hal mar wax cuntid muddo 10 sano ah kadib waa gadan kartaa boorsadan. kadib waxaa arkayna shaqaalaha oo dhan la isku wacay kulligoodna way cabsanaayeen. kadib Saara shaqada ay laga joojinaya ayada. kadib waxaa la geenaya qaybta kaamirada waxaa la tusayaa ayadoo sii baxayso oo ka tagaysa qaybteeda ee ku qornayd oo kadib qof imaanayo kadib meesha wax ka cadaayo. Saara waxay ku dhahaysaa waxaan dhan ma dhici lahayn haddii aad noo fasaxi lahaydeen inaan isticmaalo suuliga macaamiisha oo inta ka dhow. suuliga shaqaalaha safdheer ayaa loo gelayaa. marka kaalinta isku daynaya maa sugi lahaay war adduunkan uu soo koobtay keli xanuun ay ugu dhici rabo. ayadoo ooynaysa waxay codsanaysaa in markaan laga qaleeyo. tii macaangagta eedna waxay ku dhahaysaa macquul ma ahan wax meesha laga xado waa inay dhiibtaa waana sharci u yaal shirkadan go'aankaas waxaan gacanteena ku jira ma aha. kadib Saara waxay dhahaysaa hay lacagta laga meeqa waay. ayadana waxay sheegaysaa in lacagta laga rabo ay tahay 50 milyan oo won. kadibna Saara shaqo kale ayay gashay oo maqaayad alaabta waa dhaqaayo. ayadana markii loo keenay saxanka intaysa dhaqan ka hor baahiis darteeda wixii dadka soo reebaan hal mar ay af gashanaysaa. kadib maalintii xigtay ayadoo baraanka seer ku cabayso saaxiibteeda waxay ku dhahaysaa ma ogeyn in adiga sigaar cabtid. Saara waxay ku dhahaysaa mar dhow la bilaabay waana wadada kaliya aan siina ku qaadan karo. kadib lacag ay u soo bixinaysaa waxayna ku dhahaysaa aniga shaqaalaha kale ayaa lacag soo dardarnay marka waxaa laga yaabaa inay meel ku buuxiso wayna siinaysaa. maalmo kadib waxay tagaysaa meel dadka taatuuga loogu qoro kadib lacag ay qaadanaysaa si korkeeda loogu tababarto. kadib lugteeda ayaa lagu barbaranayaa taatuuga. kadib ayadoo shaqada joogta asxaabteeda waxay u sheegayaan inay jirto meel lacag laga helo. kadib waxay imaanaysaa dukaanka ugu weyn ee boorsooyinka iyo dharka celiska lagu gado waxayna arkaysaa dadka oo kala dafaayo boorsooyinka. Saara dhinaceeda ayay ka gashay boorsooyinka wayna soo aruursatay. kadib markay xaafadda timid waxay internet ku bilowday inay ku gado boorsooyinka. habeenkii oo dhan way fiirinaysay inuu qof gatay in kale. kadib markay shaqada timid suuliga macaamiisha ayay gelaysaa waxayna fiirinaysaa inuu hal qof gatay xataa waxay internet ka dhigtay ayadana hal qof xataa ma ka gadan. kadib markay banaanka soo baxdo waxay maqlaysaa in dadka caan kaliya wax laga gato markaas Saara fikrad ayaa kusoo dhacayso. kadib guriga markay timaado waxay bilaabaysaa in dadka caanka sawiradeeda ay soo qaadato kadibna editing ay ku samayso ay ujeedada ku bedelato. markay dhigto waxa soo dhacay comment fara badan dadkana waxay dhahayeen anaaro walaalo ii gado. markay u kala kacdo waxay tagaysaa dukaanka celiska lagu gado wax meesha yaal ay soo aruursanaysaa. maalmo kadib markay lacag fiican ay heshay lacagtii 50 milyan laga rabay ay iska guudaysaa. maalintii xigta markay tagto meesha boorsooyinka soo gada jirtay mid ka shirka fadhiis waxay u sheegaysaa in la joojiyo boorsooyinka badnaa ay hal qof gadan jiray qofkiina waxa uu ogol yahay 1 milyan oo won oo kaliya wax u gato. kadib waa ku bariyay Saara. kadib waxa soo dhacay fariin oo lagu sheegay in la gaar waqtiga dhiib leed deenta. kadib waxay imaanaysaa shirkadii deenta ka qaadatay. kadib lacagtii lagu lahaa ay dhiibaysaa. ninkii deenta ka qaaday wuxuu ku dhahayaa lacagtan waxa ka dhiman. Saara waxay ku dhahaysaa laakiin wixii lagu lahaa waan dhiibay. asagana wuxuu ku dhahayaa deenta qaad dulsaarkeeda dhiman. Saara waxay ku dhahaysaa hadda ma hay laakiin bish soo socota in dhiibaya. asagana wuxuu ku dhahayaa dhib ma lahan hadda dhiib ka waran isla hadda ku doomi lacagtaas. kadib gacanta ay xog ugu qabanayaan warqada suulka ugu siixanayaan si mar kale deen oo qasab u qaadato. kadib lacagta uu gacanta saaraya waxay kadib loo kacishanayaa wuxuuna ku dhahayaa lacagtaad aqad soo celin weysay adeeg ku taala. maalmo kadib ayadoo shaqada joogta ay u imaanayaan kadib ayadana ay ka ordaysaa. kadib qol ayay ku dhuumanaysaa markay soo furaan qolkooda kuma jirto Saara. ayadana waxay ku dhigneed meesha qashinka laga tuuro ayadoo kor isu soo qaadi rabto meesha qashin qubka ayay hore ugu sii dhexdhacaysaa. maalmo kadib ayadoo alaab cusub kartoonada ka furayso waxaa ku jeexmayso boorso qaali ah. markay aragtay inay jeexmato boorsada ayadoo ooynayso hore ay ugu sii cilbaxaysaa ayadoo qaylinayso. kadib intay gudaha gasho dhalo cabitaan ah inay soo qaadato ayay sigaar meesha ku shidanaysaa. kadib kor ayay fuulaysaa sigaar qiiciisa waxay ku afuufaysaa mashiinka dabka. dukaanka oo dhan waxa ku soo daadanaya biyo badan meesha dhan way qoyaysaa. kadib gudaha ayay soo galaysaa waxayna jibinaysaa dhaladii ay ku jirtay hadda kor boorsada ka helaysay. kadibna way soo qaadanaysaa. kadib waxay go'aansanaysaa inay isdisho waxayna qoraysaa warqad oo dardaaran ah. kadib intaysan isdilin ka hor waxay bangiga lacag ugu jiray way soo baxsanaysaa soo kaash ah waxayna fuulaysaa buundada kadibna istuuraysaa. baarka waxa ku dhahayaa jaay qoftaan haddaysan isku dishay laakiin lacagtii xad intee geysay. maalintii xigta meesha isku dishay uu tagayaa meesha maqaayad ku taalay ninkii joog ayuu weydiinayaa inuu qoftaan meel ku arkay. ninka waxa ku dhahayaa macaamiisheena badan marka ma aqoonsan kari qoftaan. kadib isagoo meesha fiirinayo sawir dad hore meesha ugu dhajiyeen markuu sawir kamid ah arko wuxuu soo xasuusanayaa haween buuga u dhiibaysa inuu jirwiil ugu magacaabo Ji-won inuu jacayl ku abuurtay Saara wuxuuna caawiye u ahaa duqii Joel dhahay. kadib waxa wadada u galaya Joey gaarigeeda oo isku horgoynaya. kadib wuxuu tusayaa sawirka Saara iyo Ji-won wuxuuna ku dhahayaa Saara wiilkan labadooda xiriir jecel ayaa ka dhaxeeyay. Joey waxa ku dhahaysaa oo labadoodna ay soo tashteen sidii aniga qiyaaban ma ii sheegi rabtaa hadda. baarka waxa ku dhahayaa taas waxay cadaan doontaa markaan baaritaanka dhameeyno marka labadeena waa in is caabinaa. Joey waxa ku dhahaysaa waa soo daahday haddaa rabtin inaad aragtid kaamirooyinka waxay duubeen systemkii hore waa bedelnay wixii ay duubeen hore daadkay raaceen. subaxdii markuu yimaado xafiiska waxa soo orday Jaay wuxuuna ku dhahayaa adi xal anoo ku raadinay intee jirtay madaxa naga sare ma ogolaaday inaan baaritaan ku sameeyno webiga isku tuurtay Munga. baarka waxa ku dhahayaa go'aankayga wuu isbedelay in meesha baaritaan lagu sameeyo. Jaay wuxuu naaqay wuxuuna ku dhahayaa baarka macquul ma ahan marka cadaan hel rabno inaan isdhiibno marka aniga waxaan sameynayaa. kadib haan oxygen ku jirto ayuu soo qaadanayaa wuxuuna imaanayaa webiga si asigii kaliya baaritaan ugu sameeyo. kadib waxa arkaya meesha in la buuxo oo webiga baaritaan lagu haayo. kadib waxa weydiinayaa shaqaalaha meesha hoosh ka hayaan wax meesha ka jiro. asagana waxa ku dhahayaa in xal uu soo wargeliyay askarta nin kulmeysata ah inuu webiga ku arkay malaayiga dadku cuna marka meeshan halis waa ay dib u laabo. kadib waxa gadaal soo hadlay baarka wuxuuna ku dhahayaa kafeegan kala cab. Jaay wuxuu ku dhahayaa oo waxaan adiga qorsheysay miya si ayaga baaritaan meeshan ugu sameeyaan si meesha ugu baarayaan malaayiga dadku cuna. midkoo waxa ku arkaya madaxda oo meesha baarayaan ka soo baxay midkan hal mar ay dhulka isku tuuraya. kadib khaylaha afku furanaya. dambi baarkii saaxiibkiisa markay maqleen in meesha madax lagu arkay hal mar ay soo ordayaan waxayna
arkayaan madaxdooda oo meesha yaalo. kadib meesha waxaa imaanayaan askarta waxayna soo aruurinayaan meydka lafihiisa. kadib shaybaarka markii la geeyey meydka dhakhtarka wuxuu sheegaya markii aan baaritaan ku samayn lafahan waxaa noo caddaatay inuu yahay nin da'diisa u dhexaysa 20 ilaa 30 sano. baarka oo yaab wuxuu dhahayaa nin kan amuu yahay G1 meydkiisa. kadib waxay imaanayaan guriga G1 baaritaan ay ku bilaabayaan. baarkana wuxuu gudaha u galayaa qolka wuxuuna arkayaa saacad dhiglo meesha taalo. Jaya soo baaritaan wada wuxuu arkayaa daawooyin soo fiirinayo. waxaa baafka suuligu dhex fadhiyay G1 waxaa geenaya qolka baaritaanka. baarka wuxuu dhahayaa qof dumar meydkeeda ayaan helnay. kadib sawirkeeda ayuu tusaya waxaan rajeynayaa inaad wax badan ii sheegi doontid kiiskan wax ku saabsan. G1 wuxuu dhahayaa qoftaas Yoon ayaa la dhahaa waxaan ku arkay baarka. Jayna wuxuu dhahayaa adi sugbo Yoontan iyo noo ahayd. G1 wuxuu dhahayaa Sara iyo Yoon ayay ma aho waxaa maqal magaceeda runta inuu yahay Moka. baarka wuxuu dhahayaa Moka xataa magaceeda runta ma aha ee waxay ayad samaysatay oo feeg ah. Yoon waxa u isticmaashay inay adigu ugu soo dhawaato. G1 wuxuu sheegaya qoftaas inuu asaga u dhawaado ee ayad u soo dhawaanin. ayadana habeenkii baarku arkay G1 asaga u tagay kadib magaceeda ayuu weydiinaya. ayadana wuxuu sheegaysaa in la dhaho Yoon wuxuuna farteeda ku arkayaa faraanti wuxuuna ogaanayaa in qoftan la qabo. kadib wuxuu boorsada ka xadaya furaha gaarigeeda. markay kala tageen asaga wuxuu iska dhigaya inuu furaha gaariga ka helay dhulka. kadib sawir ahaan ayuu u diraya iyada. kadib markay u soo jawaabto xaafada ayuu tagaya. ayadana ayadoo kaba la'aan ah ayay soo baxaysaa. waxayna ku dhahaysaa kabaaga ii siib asna u siibaya wuxuuna u gelinayaa kabaha. kadib qayd ayay aadayaan. G1 wuxuu ku dhahayaa oo cuntadan mana cuntid ma kaba la'aan ugu soo baxday guriga. Sara waxay ku dhahaysaa ninkii qaba ayaa ii dhibay mana ogol inaan cuntooyinka noocan inaan cuno. G1 wuxuu ku dhahayaa oo maxaa u gurista wax noocaas ah oo qashinka ah oo maxaa kuu geeyey. habeenkii xiga haddana ayadoo jifta ayuu soo wacaya. markay dirishid soo istaagto waxay arkaysaa asagoo banaanka joogo. kadib way soo raacayaan asagana wuxuu ku dhahayaa labadeen hadda isla baxsan ka waran. kadib Sara ayadana fiirinaysaa asana wuxuu ku dhahayaa waa kul kaftamay. markuu xaafadu ku soo celiyo waxay siinaysaa saacad ay wadatay. markale ayagoo maqaayad wada joogaan wuxuu arkayaa ayadoo gacanteeda dhaawac ay leeyihiin. wuxuuna ku dhahayaa ilaa heerka muu gaarsiiyey inay isticmaasho daroogo. adida baal ma tahay maxaa ula joogtaa qof noocaas ah. Sara ayadana markii khasna waxay iska wadatay cuntadeena cunto. kadib wuxuu ku dhahayaa kabar ninkaas dartada haddaan u dilo oo nafturqsi asadan. habeenkii xigna soo qaadanaya gaari kadib asagoo mindi wato oo afku duuban yahay uu soo degaya gaariga sidoo u soo socdo mindidoo ka taagaya. baarna wuxuu ku dhahayaa oo oday sidaas ma ku dishibo. G1 wuxuu ku dhahayaa maya isaga ma gelinin mindida Sara isku dhigtay. kadib asagoo naxsan ayuu meesha ka ordaya. wuxuuna ku dhahayaa dambaaraha qofta sanada kadib way isbedeshay. Yoon ayaa ku ogaa magac way bedelatay qaabkeeda dhan waa isbedelay. waxayna ii sheegtay inay aas rabto shirkad cusub oo lagu magacaabo Budiyoor. waxayna rabtay inaan maamulo ka noqdo dukaamadeeda mid kamid ah. waxayna iga codsatay inaan ka caawiyo sida uu bilaabi lahayd. kadib waxay ugu dhahday inaan xiriir la sameeyo duqaduu Joy la dhaho. baarka wuxuu ku dhahayaa aad warkeeda miska aaminay leh. G1 wuxuu ku dhahayaa wada kale ma haysan inaan aamina ma ahe waxaana ku ballan inaan mustaqbalka labadan islahaan doono. kadib wuxuu sheegayaa inay gurigeeda cusub ay ku ballamisay. kadib gadaal ay u imaanaysaa waxayna siinaysaa furaha guriga mid kamid ah. kadibna waxay ku dhahaysaa guriga magacaaga aan ku qoray markaa ijaarinayay. asna asagoo yaaban waxay ku dhahaysaa waxaa saas u sameeyay si aan u hilmaamno wixii hore oo aan u bilaabo nolol cusub labadeena. kadib asagana wuxuu fadhiisanayaa kursiga wuxuuna ku dhahayaa ma ogtahay hadda kahor furihii gaariga kaa dhumi jiray kaama dhumine aniga kaa xaday. Sara waxay ku dhahaysaa waan ogaa inaan xaday furaha. asagana wuxuu ku dhahayaa aniga isku malay jiray inaan ahay qofka ugu aqli badan adduunka laakiin adiga iga aqli badan waana sababta kugu doortay adiga. Sara waxay ku dhahaysaa dadka adduunka joogo waa kuwa cajiib ah waxayna jecel ku qiimeeyaan inuu ka sareeyo qofka da'diisa qaabka u yaalo. aniga waxaan diyaar u ahay inaan u adkaysto waxaas oo dhan adiga darteed maxaa u samayn kartaa. G1 wuxuu ku dhahayaa aniga wax walba aad iga dalbato diyaar ayaan u ahay sideen ku caawiyaa. ayadana waxay u dirtay duqdii Joy la dhahay. kadib habeenkaas asigii duqda wixii ka dhaxdhici lahay way ka dhaxdhaceen. kadib wuxuu ku dhahayaa shaqadan hore u ahay waan ka soo tagay hadda shaqo dhan ma haysti. Joyna waxay ku dhahaysaa taas dhib ma lahan xafiiskii aan shaqo kan siinaya. duqdii Joy waxay ka dhigatay gacan yaraheeda markay dukaanka Sara imaanaysay wuu la socday oo meesha kuma tagaysay. maalmo kadib markay soo wareegtay labadooda guriga wada joogaan. G1 wuxuu ku dhahayaa Sara waxaan rabaa inaad joojiyo waxaan oo dhan waan daalay hadda shirkadaada Budiyoor way guulaysatay wax fiican waa ka heshay. duqdii Joy hada shirka badneed waa nacay wejigeedana oo iga babatay marka waxaan go'aansaday inaan shaqadeeda iskaaga tago. Sara intoo dhikar ku kaco hal mar ay dhabax ka qaacinaysaa. waxayna ku dhahaysaa go'aan noocaas marka iska gaaraysid yaa tahay adiga yaana awooddaas ku siiyey. G1 yaab ayaa ka soo haray wuxuuna ku dhahaa Yoon maxaa dhabaxshadan qiica ay kicisay. Sara waxay ku dhahaysaa Sara kiim waa inay ugu wacdaa Yoon lama dhaho. haddana laba sikin kadib hab ayay siinaysaa. maalmo kadib asagoo wariidka bixirow waxaa soo dhacayso bashqad meesha la sii suray. markuu furo bashqad waxa ka soo bixayso labada shirkadda Sara oo gadaal waxa ugu qorneyd waxa lagu sameeyay China. kadib waardiyaha ayuu weydiinaya qofka bashqadda meesha u suray. waardiyaha wuxuu sheegay qofkii ugu dambeeyay soo booqdo gurigeeda waxay ahayd qof isticmaalaya magaca Sara asana suray bashqadda guriga hortiisa. G1 wuxuu bilaabay inuu dabagal Sara. Sarana waxay gelaysaa guri qaybta hoos ku yaalo. markuu soo dabagal wuxuu arkayaa meesha dad badan joogaan oo boorsooyin lagu sameeynayo. markay aragtay ridna qof joogo banaanka ay soo baxaysaa kadib way weynaysaa qof meesha joogo. kadib dabbaara wuxuu sheegay in qoftaas baxri dhexda ka gelisay waxayna iska dhigtay inay jeceshahay laakiin qoftaas kaliya waxay rabtay inay ugu dabto duqdii Joy ahayd. aniga waxaan ahaa jaranjarada isticmaalaysay siday u gaarto duqdaas. kadib wixii aan sameyn lahaa ayaan sameeyey wixii guriga dhan waa jibiyey xataa saacadii hadda kor ay siisay miyaaradda ka dhex bixiyey. kadib ninkeeda wacay wax walbana uu sheegay inay qoftaas ay khiyaanolada ay tahay ee lacag darteedana u guursatay. maalmo kadib waxaa maqlay in meed la helay uuna yahay qofkaas qof aqoonsan la yahay wuxuu yahay qofkaas qof kale ma ahayn ee waa Yoon meedkaas. baarka wuxuu ku dhahayaa hadda waxaana leedahay qoftaas ninkeeda dilaa. G1 madaxa ayuu qabsanayaa wuxuuna ku dhahayaa Yoon iyo Sara wixii la dhahabo aniga ka mas'uul ah inay dhimato qoftaas. kadib baarkii saaxiibkiisa waxay imaanayaan guriga ninkii Sara qabay. duqii banaanka ayuu soo baxayaa asana kadib way fadhiisanayaan. duqiina wuxuu sheegay inuu kaliyaha uu beelay. kadib dhaqaatiirka waxay sheegeen in laga bedelo mooye kaliyaha hal kale ma jiro. kadib hooyadeeda ilmaheega naagteedii hore macal saaxiibkeeda 40 sano saaxiib aan ahayn way diideen inay hal
kale ii bixiyaan anigana waxaan umaleynaya inay beri aan gaarin xataa sidaan cabitaan badan u cabaayay oo meeshana u jijibiyey markaas dadka dhan way kala ordeen laakiin ayadaa meesha ku hartay asagana waxaa ku dhahaya saara meeshan iskaaga tag saara intaysan bixin ka hor meesha ay soo fadhiisanaysaa waxayna ku dhahaysaa oo saamiya nolosha dadka taajiriinta hal saa ayaan ku siinaya ii sheeg wax walbo asagana wax walba uu sheegaya inuu keliyaha laga haayo kadib ayada waxay ku dhahaysaa keliyadeyda ayaan ku siinaya keliya waxaa isiisaa 500 milyan oo won odagana waxaa ku dhahaya adiga ma waxaa rabtaa xubnahaaga jirka inaad ka ganacsatid saarna waxay ku dhahaysaa kabar labadan haddaad isguursano aroos feeg ah odaga waxaa ku dhahaya adiga sidee kugu kalsoonaa aniga saara waxay ku dhahaysaa dhib ma lahan lacagtaa ku ballannay gadaal iga sii kadib saara duqa gurigiisa ayuu soo guurtay asagana aqoonsi uu hayay mid kamid ayuu siiyey wuxuuna u bixiyey magacayoon maalintii xigtana arooskoodaa dhacay hal san markaa isqaban waxaa sharci ah in labada lamaan isku bixin karaan xubnahooda jirka hadduu mid kale xanuunsan yahay si sharci ah kadib lacag ayuu siiyey si dhar fiican say u soo gadato ayadana wixii dhar ah ay soo gadanaysaa markaas kadib waxaa la bilaa in jirkeeda la baaro waxaana laga qaaday dhiig fara badan si caafimaadkeeda loola socdo maalmo kadib ayagoo meel wada taagan oo wada hadlaayo markaas waxaa soo weerar jiwon mindadii duqda loo waday ayadaa isku dhigayso kadib dhulka ayay ku dhacaysaa kadib wuxuu geenayaa isbitaalka markay soo kacda ayay wax sheegaysaa kadib dhegtiisa ayuu soo dhaweynaya kadib waxay ku dhahaysaa keliyadeeda ma fiican tahay markay soo caafimaad wuxuu isku wacayaa abukaatiyaashiisa wuxuuna u sheegayaa in hantidiisa oo dhan uu ku qoray xaaskiisa yoon kadib waxaa la gaaraya maalinta qaliinkiisa odayga ayadaa la joogto waxayna ku dhahaysaa gurigaa nooga soo qaadaya wax waana soo laabanaya ayadoo sii bixaysa waxaa banaanku arkaayo midkii hadda ka hor lacag deenta xoog ku siinayay kadib wax dhan duq ayuu sheegayaa in qoftan ay tahay qof khiyaanooley ah kadib saar way soo qabanaya waxayna ku shubayaan bisiin kadib waxay wacayaan duqii wuxuuna ku dhahayaa qoftaas la iska sii daayo anigaa ogolaaday marka koowaad lay qiyaamo wixii been ku bilaabo been lay ku dhamaadaan qoftaas ma qiyaamine ee iska fasaxa anaa isqiyaamee saar markay warkaas maqashay way la yaabtay waxna bilaabaysaa inay oyso kadib duqii markay subaxdiida gaaro wuxuu arkayaa saaro agtiisa fadhiso wuxuuna ku dhahayaa maxaa kelidaada ii siisay haddaa iska bixi lahayd oo dhiman lahaa hantideeda oo dhan waa heli lahayd saarna waxay ku dhahaysaa dhib malan waa sugi karaa si aan u helo hantidaada laakiin ilamaha inaa sugi doono waqti dheer kadib saara faraantiga waxay u tegaysaa sariirta gurigina iskaaga tegaysaa markuu soo laabtay wuxuu arkayaa geedka qaaliga ahaa ee gurigu dhex yaalay oo ay hore u sii qaadatay geedkaas qiimihiisuna wuxuu ahaa 500 milyan oo won kadib oday qosol ayuu jabsanayaa duqna wuxuu soo bixinaya warqadaha isbitaalka kadib markuu arko marka wuxuu ku dhahayaa laakiin meedka helnay meen meed keliyaha ka maqan yahay saara kimna way nooshahay halkaas ayaa nooga egtahay qaybta labaad ha ilaawina muuqaalkan leeg saartid saaxiib inagu cusub haddii aad tahay subscribe soo dhe janalka gambaleelkana furo si aysan kuu dhaafin qaybta xigta